runtii farqiga u dhaxeeya aniga saan qiyaasay waxa waaye dadka wacyigooda talyaanigu markuu koonfurta Soomaaliya yimid dadka koonfurtu waa dad iska qabow oo dhib badan lahayn oo wixii la yeelay aqbalay saan qiyaasayo dadkii koonfurqooyiga waxay u qabtaa inay aad uga soo horjeesteen markuu Ingiriisku yimaaday heshiis la gaaray heshiiska ugu horeeyay Berbera ka dhacay heshiiskii Santa la yiraahdaa oo heshiiskaas waxa kamid ahaa gabdhaha Ingiriiska ee uur kale inay dhulka Soomaaliya ku dhali karin maxaa yeelay waxay ka cararayaan inay xuquuq dhulka ku lahaadaan marka taasina waxay sababtay in gumaysiga Ingiriisku shacabku kala qoqob sameeyaan oo inta badan isma dhexgeli jirin xilliyadii dambe oo gumaysigu dadku isoo fahmeenba hormaraadkii la rabay in waqooyiga laga sameeyana taas ma suurtagelin tusaale waxyaabaha cajiibka ah ee laga hortagay waxa kamid ah oo faa'iido u ah Soomaaliya Ingiriisku mar buu doonayay inuu idaacadda BBC-da qaybta bariga Afrika oo dhan in laga dhiso Berbera dadkii Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu rabay inuu furo jaamacad la yiraahdo Makerere University oo hadda Uganda ku taalo jaamacad weyn ah oo Afrika jaamacadaha ugu horeeya iyadana dadkii diiday oo dhanama gaaraysiinaysa يعني مرة قار هرمرات كي عقبات أي دتك كنقدة لكن كفرت تكسية تليانة كنيسة دت قالوا بنا مجوج رنتي لكن واحد سلاي هاي شعب كلا هذا شعب كفر وقوي أيا شعبنا بسال وها إن دولة ما قاتن شعبنا جوميسي كهرتها. ويا مقالوين كواوين أفريقيا عنك هدي جوجل كل جلي مركبة صباحية مدتك أجانبتا أقوى سكران حنو شيء مقالوينكو وين أفريقيا مقالوين وين لهذا قاهرة مقالو وين أو تاريخ وين كله أو حضارة وين كله أيام كحوس كرنا سيدا كلام حن كحوس كرنا مقالة اللي هذا خرطوم السودان وحلقة وكل مو لبودو نايل أو بلو نايل كي وات نايل كا سيدا كلام حن كحوس كرنا عاصمة إثيوبيا أو حرم تميدو أفريقيا أو حرم وين sidoo kale waxaan ka xusi karnaa magaalooyinka xeebaha ku yaala ee Madagascar oo ayagana magaalooyin waaweyn oo qadiimi ah iyo magaalooyin kale oo dhulka Soomaalida ku tirsan ilaa Djibouti laga gaaray Afrika runtii magaalooyin xeebo qurux badan leeyihiin laakiin xeebihii sida saxda ah laguma faa'iideysto Afrika waa umada kaliya ee ka baahan kheyraadka agaal waxaan nooga sheegi kartaa xilligii la aasaasay ama la sameeyay ururkan midowga Afrika iyo dalalka ku midaysan hadda midowga Afrika dalalkii aasaasay Soomaaliya qayb ka ahayd 1963 ayaa la aasaasay xilligaas oo inta badan wadamada Afrika ee qaarkood xornimo ay qaateen qaarkoodna xornimo u dhawaayeen ujeedka loo aasaasayna waxay ahayd in la taageero nidaamka gobonimo doonka wadamada Afrika maxaa yeelay xilligaas wadamo badan oo Afrika ayaa gumaysiga ku jiray in la mideeyo qaaradda in mustaqbalka la iska kaashado arrimaha dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada wax kasta oo related la Afrika in la mideeyo cata oo yani gaashaanbuur loo sameeyo mustaqbalka sida gaashaanbuurta European Union oo kala ah laakiin riyooyinkaas waxa u maleynaysa kontumeey sano ka bacdi Afrika meeshii ay loo rabay wali ma gaarin dad waxa jiray oo يعني وذي إن أفريقيا لم يديو قذافي وكلا عرفتي وحجدي جري إن أفريقيا هل باسبور يلتو إن أفريقيا هل دقالة يلتو هل لعج يلتو يعني أفريقيا كلا قوقبن إسنجري لكن تاسمح أوقات تريداس إنسان روميوين حيالي جميسيا قيب كإنسان أفريقيا مذوبي جميعش أفريقيا وأنا أدير سنين قف كستبق قل كيس ملكو حرت وأنا سببته أفريقيا هرمرك وجاري لعض ودن كستو أفريقيا ما أنتو حول الدلالة على ديمو يكولي مدمريك البيضة أما IMF أما وول بانكيا تاسينو حسابتين أفريقيا ولي هرمرك للربي iyo ujeedka loo aasaasay ururka midnimada Afrika wali laga magaalo way tan lacagta hadda soo hadal qaaday ideymaha wadamo badan waxa jira deymo lagu lahaa oo ilaa maanta raba in ay isku gudaan deymahaasi oo bil kasta ama sanad kasta lacag iska bixiyo Uganda kamid ah wadamada saas sameeya Soomaaliya lacagihii lagu lahaa ideymaha ahaa sanadkii tagay baa la yiri waa laga wada cafiyay maxaa keenay in wadamana ay iska magaan lacagihii lagu lahaa wadamana ay ka soo kaban waayaan dhaqaalihii farbadnaa ee deensadeen runtii Soomaaliya iyo Uganda laba daraf kala duwan waaye Soomaaliya wadan dagaal soqay ka dhacay oo muddo 30 sano saaxada ka maqnaa
lacagta Soomaaliya laga cafiyay kala bar lacag ku dhow waxay ahayd lacagtii dulsaarka ahayd oo intaan dalkan burbursanaa la dulsaar interestiga ahayd wadamada Afrika waxaad u qabtaa aqoon-yahanada Afrika waxay dhahaan Afrika in dhaqaale lagu bixiyo waa gumeysi cusub malaayiin dollar ay China ku maalgeliyaa Kenya waxaana la yiraahdaa 20 sano soo socda Kenya iskama bixi doonto dhaqaalahaas maxay la awood u ma lahan dhaqaale intaas la eg marka mararka qaar waa gumeysi cusub yani oo Afrika ay galayso oo dhaqaalaha ah oo qofka uusan horumar badan gaari karin adoo shalay $100 lagu lahaa hadaad iska bixi weydo maanta 200 kale laguma siinayo 100 kaas lagu cadaabo go'aanadaada lagu la yeelanaa dalkaada gudihiisa marka duruufaha Afrika jira ee maanta deena cafinta iyo wadamo badan had Ethiopia kala waa qaamisanta Kenya waa qaamisanta Djibouti hada qarkay ka saaranta waxaas dhan waa maalgelin shisheeye oo wadankaas la geliyay wax natiijaan badan nolosha dadka aysan ka gaarin inkastoo horumar ay gaareen laakiin haddana taas waxa ka fiicneed in Afrika kaligeed yani inkastoo adduunka horumarku isku dhafan yahay oo kaligeed wadan kaliya horumar uusan gaari karin laakiin haddana IMF iyo World Bank-ga aqoon-yahanada Afrika waxay dhahaan waa gumeysi cusub oo wadamada reer galbeedka waa gumeysiga dhaqaale waa gumeysi dhaqaale oo kii qoriga bedelayo waa gumeysi xagga maskaxda waa gumeysi xagga maskaxda maxaa yeelay wadankan malaayiin dollar lagu raqinayo malaayiintii dollar biri waa laga rabaa hadda Soomaaliya kala ah diinta ugu badan waxaa la galay xilliga dawladda kacaanka iyo xilliyadii oo yani dagaalkii 77 laga soo baxay lacagtaasi 3 billion ka ah lacag ka badan ayaa dul fuushay oo ah 30 sano oo sanad kastaba marka lacagta iska bixi weeyay lacag dul saar ah ayaa koraysay marka taas culays ku tahay hadda madaxweyne waxa jira wadan Afrikaan ah oo dhawaan afgami military ka dhacay wuxuu iska raacday dhamaan IMF iyo World Bank sababtoo iskaga raacdayna wuxuu yiri dhaqaalaha wadankeega curiyaaminaya yani lama jaan qaadi karaan dhaqaalaha dalkeega marka waa sabab muhiim ah in Afrika IMF iyo World Bank yihiin gumeysi casri oo reer galbeedku leeyihiin way gabagabadii waraysigan joognaa hal iyo laba wax nooga sheeg hogaamiyaashii Afrika soo maray xornimo doonkii isbedelka Afrika ka sameeyay runtii hogaamiyaasha Afrika way farabadan yihiin waxaan ka xusi karnaa Nelson Mandela tusaale wanaagsan oo Afrika aabihi xornimo doonka South Africa ahaa ninkii ugu horeeyay ee si nabad ah asoo jamhad iyo ururo iyo dagaal u sameeyna xornimo South Africa ku gaaray runtii Nelson Mandela taariikhdiisa waa taariikh laga wada dharagsan yahay oo Afrika oo dhan ah sidoo kale Muammar al-Qaddafi isagoo hogaamiyaashii ku riyo jiray in Afrika midaysan la helo laakiin riyadaasi waa riyo aan weligeed rumoobin iyo hogaamiyaashii kale Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre kala hogaamiyaashii ku riyoonayeen in Afrika ay noqoto qaarad fiican oo hodan ah oo uu ka qayb qaatay xataa wadamo qaarkood oo bartamaha Afrika dhaca in yani xornimo la siiyo oo ururo xornimo doona xamar waxaa jiray ka furan xisbiyo ah oo wadamadaas lagu taageeri jiray ciidamada Soomaaliya loogu tababar jiray laakiin intaas oo dhan waxa uu qabtaa riyooyin aan rumoobin marka hogaamiyaasha Afrika inta badan waxay ku rumeey jireen in Afrika madax banaan oo Afrika qurux badan la helo laakiin riyooyinkaas waxa uu qabtaa inaysan rumoobin Afrikana gumeysi kale oo sidoo ban marada daahiyada u joogo dhalinyarada maadaama la yiri qaaradda Afrika waa wadamada ugu badan dhalinyaro ay joogaan oo waliba teenage ah maxay ka bedelaan isleedahay sanadaha soo socda runtii dhalinyaradu hadaysan helin wax jiheeyo waxba ma tarayaan Afrika inta badan dadkoodu waa dad iska sabool dhalinyaradoodu waa iska sabool waa dhalinyaro iska tahriibaya inta badan badda Mediterranean-ka wax ku baabaa waa dhalinyaro Soomaaliya ka tagay Eritrea ka tagay Ethiopia ka tagay nolol raadis waa marka aniga waxaan isleeyahay haddii la helo hogaamiyaal dhalinyarada midayn kara oo Afrika gudaheeda ah taasi Afrika muhiim u tahay oo hadda wadamada Yurub waxay ka fakarayaan dadka soo tahriibaya dalalkooda lagu maalgeliyo si dhibka loo yareeyo maxaa yeelay waxay ka soo tahriibayaan dhibaato waxaa jirtay nin xildhibaan ah oo baarlamaanka Ethiopia ka jira waxa la yiraahdaa wadankan Canada oo iska dhiibay markii la wareysay uu yiri aniga xildhibaan ah baahayaan u dhimatay marka meel oo xildhibaan iska dhiibayo oo dareemi kartaa dadka shacabka nolosha ku noolyihiin marka Afrika waxa la degay hogaamiyaashoodii wadan kastaba dhaqaale uu leeyahay laakiin hogaaminta ayaa muhiimad iska leh